الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد أيها الأحبة نفسي قوما إن شاء الله تعالى وقصع في سن الموعظة من آدمكو noloshiisu inta badan laynii si quman ma socoto qofka biniaadamkii mar waa nashiid caajisa mar khafla ku dhacda siiba qofka jooga dhulka galbeedka waayo dad maadda mooyaane aan ilaah iyo aakhiratoona ka warramin baynu la joognaa waxaa halkan lagu hayoo dhammi waa maadda iyo adduunyo way yartay inaad aragto cid aakhiro ka warramaysa ama rabbi ka warramaysa subxaanahu wa tacaala sidaa ogeed qofka muslimkii kama maarmo xasuusin iyo waano kama maarmo in rabbi la xasuusiyo subxaanahu wa tacaala ilaahayna wuxuu qur-aanka ku tilmaamayaa sababaha loo soo dejiyey waxyigaba inay ka mid tahay in dadka wax la xasuusiyo ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyay yaa ayuha الnaasu qad jaaءatkum mawcidaة min rabbikum washifaaء lima fi الصuduur wahuda waraxma lilmu'miniin baa ilaahay leeyay yaa ayuha الnaas wardadow baa ilaahay leeyay annaasu jamiica wardadow baa rabbi yidhi subxaanaه wa tacaala xagga rabbi waxaa idinka timi mawcida waano qur-aanka ilaahay wuxuu ku sifaynaya inuu yahay maxay mawcida warwaana xagga alla idinka timi mawcidata min rabbikum wa shifaaءun lima fi suduur wax caafimaadiya qalbiga bini aadamka meel waswaas ka gala qalbiga ugu daran shubhaadka iyo shahwaadka iyo waxaas in badan oo ka midi qulubta ku dhacda sidaa awgeed waxa uu nabigu waxaa qur-aanku uu tilmaamayaa in rabbi subxaanahu wa tacaala uu u soo dejiyey kitaabka kan in lagu gebagabeeyo ama lagu tilmaamo laabta waxa ku jira inuu caafimaad u yahay hanuun inuu yahay naxariis inuu yahay kutubtii ka horraysayna ilaahay wuxuu ku sifaynaya inay sifadaasi ahayd waxa loo soo dejiyey oo nebi muuse ilaahay markuu ka hadlayo wuxuu leeyay wakatabna lahu fi lalwaaxi min kuli shayin mawcidatan watafsiila وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة إلهي wuxuu tilmaamayaa looxaantii nebi muuse waxaa loogu soo qoray min kulli shayin mawcida wax walba waano ayaa laga soo siiyey nebi ciise calayhi الsalaam ilaahay markuu ka warramayo wuxuu ku tilmaamayaa وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين با إلهي كسفي كتاب كيلو سردي بي نبي عيسى وانوها إذن أيها الأحبة قف وانا كمار ما مجره ويرسو شبه وحا الله صدر يبال لين يددك وانيان kutubtii rabbi xaggiisa ka timina waxay u timi inayna waaniso qofka bini aadamkana suluugiisa caqliyaadka iyo macquulaadka quri ma xukumaan macquulaadka waa la qanaacay abuuraan laakiin suluug ma abuuraan suluuga inta badan inuu qofku wax jeclaado inuu wax necbaado inuu cabsado inuu dhiirado wax allaaliya waxa qulubta ku halmaala waxaa raadeeya waa mawcidada waa waanada markaad u fiirsatana nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ahaa saxaabadiisii mid waaniya saxaaba abubakar ka mid yahay oo cumar ka mid yahay oo cuhmaan ka mid yahay culamo iyo caamaba leh wuu waanin jiray nebigu calayhi الsalaatu wasalaam maalmaha qaarkood saxiixu muslimka xadiid ku yaalla wuxuu tilmaamayaa inuu salaada subax dabadeed nebigu mimbarka fuulay oo waana bilaabay wax sheeg siduu u taagnaa nebigu baa salaaddii duhur la addimay
qiyaas hadda salaadii subax buu koray nebigu siduu u warramayay saxaabada ula hadlayay baa salaaddii duhur la addimay dabeetana dadkuu tukiyey markuu tukaday buu mimbarka ku noqday siduu dadka ula hadlayay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa casar la tukaday la addimay waa tukiyey mimbarkuu nebigu ku noqday wuxuu waday ilaa iyo salaaddii maqrib intii laga gaadhayay min salaati subx ilaa maqrib intii laga gaadhayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam dadka la hadlayay xadiidka dadka inta badani maqleen waa ka cirbaad ibnu saariya saxaabigaasi xadiidka ku caanbaxay wuxuu leeyahy nebigaana tujiyey salaad subax markii uu salaada ka soo jeestay buu nagu soo jeestay buu yidhi fawacadanaa mawcidatan baliigatan darafat minha alcuyuun wawajilat minha alquluub nebigu calayhi salaatu wasalaam wuuna wacdiyey wacdi xeel dheer ayuuna wacdiyey buu leeyahy wacdigii nebigu wuxuu keensaday in dadku ilmeeyaan wuxuu keensaday in qalbiyadu gedgadoomaan dabeetana nin baa la hadlay nebigo wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow kaannaha mawcidatu muwaddicin waxay u egtay waano nin tegaya waanadii kaannama aana dibba noola kulmi doonin oo maanta noogu kaa dambayso nawaani bay yidhaahdeen markaa fawsina noo dardaaran nebigu laba shay buu u dardaarmay labada shaya uu u dardaarmay waa labada shay ee sababa aakhirana dadku inay liibaanaan adduunkanna inay liibaanaan ka koowaad waa dadku inay ilaahay xadhigiisa haysto uusikum bitaqwa allahi buu nebigu yidhi waxaan idinkula dardaarmayaa ilaahay cabsashadiisa ilaahay ka dhowrsigiisa inaad ka dhowrsataan rabbi ayaan idinkula dardaarmayaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala jidkiisaasoo aada qabsataa waxay keensanaysaa aakhiriya adduunba inaad liibaanto waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib waman yattaqi illaaha yukafir ilaahay qur-aanka waman yattaqi illahi misuu ku tilmaamay ninka ilaahay ka cabsada dembigiisa la dhaafaya ninka ilaahay ka cabsada mashaakilkiisa loo fudaya ninka ilaahay ka cabsada yajcal lahu min amrihi yusra arrintaa loo fudaydinaya ninka ilaahay ka cabsada yajcal lahu furqaan baa ilaahay wuxuu tilmaamayaa haddaad alle ka cabsato nolosha furaheedii inaad heshay aakhirana inaad badbaadayso shayga labaadee uu nebigu u tilmaamay saxaabadii waxa weeyaan adduunkooda wixii ay ku noolaan lahaayeen wuxuu nebigu leeyahy uusikum bitaqwa allah iyo wasamci waataaca waxaan kaloo idinkula dardaarmayaa ismaqal iyo kala dambayn ismaqal iyo kala dambayn nolosha jiritaankeeda bulsho iyo mujtamacuu jiro wuxuu ku xidhan yahay inay ismaqasho oo kala dambayso ummad kasta oo sifadaa weydaa way duntaa baaba'daa soomaaliya dhibta ka taagani waxaa la waayay ismaqal iyo kala dambayn laga bilaabo guriga oo ah hooye iyo aabbo guri wada jooga iyo dhowr carruur ay dhaleen waxaa la faray cidna inay madax noqoto cidina inay noqoto cidda la maamulayo waxaa la yidhi guriga waxaa ka talinaya odayga islaantana waxaa la faray taaca iyo dhallinyarada guriga joogtaba waxaa la faray taaca waa sida qura uu ku jiri karo hadday shirkad tahay hadday masaajid tahay hadday urur tahay hadday xisbi tahay hadday dowladnimo tahay nolosha dhammaanteed administration bay ku salaysantahy maamul bay ku salaysantahy maamulle ma jiro haddaanu madax iyo mijo kale lahayn dad wada simani maamul maaha waa inay madax iyo mijo kale leeyihin madaxnimana ma jirto haddaan la aqbalaynin madaxaan la dhegaysanaynin madax baad noo tahay waxna kaa dhegaysan mayno kuna yeeli mayno dee madaxnimo ma jirto nebigu markaa wuxuu yihi waxaan idinkula dardaarmayaa ilaahay cabsidiisa iyo ismaqal iyo kala dambayn waxaa laga yaabaa dadka badh inay isdhahdaan ninkan madaxdaa mala adaaba ka caqli badan adaa ka fikrad wanaagsan laakiin nebigu wuxuu tilmaamay mar haddii madax laga dhigo mansiladaasi uu gaadho xataa almafduul ha ahaado faadilku inuu adeecayo saa awgeed buu nebigu wuxuu tilmaamayaa wain kaana cabdan xabashiya ninka maamulka haya xataa ha noqdo addoon xabashiya addoon xabashigu ma maagis la maagayaa maya
may waxa weeyaan alaslu fi shariica maamulka sare ma qabtaba xor qof aan ahayn yani addoon ma qabto haddana waxaa la leeyahay xataa hadduu maamulka noqdo addoon macnaha loo jeeda waa maxay ka idinku liitaa hadda hadduu noqdo maamulka laabud in kala dambayna ay jirto qofka ama waa in madaxnimada laga qaaday oo dee uu dhaadhacay ama hadduu madax yahay waa in la aqbalaa madax baa tay cidina ku yeeli mayso ma jirto waa madaxo anaa ka fariidsan ama anaa ka caqli badan wax jira maaha walidalik waxaa asalkii wuxuu yahay xataa hadduu yahay buu nebigu leeyay kategorigii bulshadii carbeed addoomaha dadka la yidhaha soomaalidu inta badan markay addoonka maqasho waxay moodaa nin madow in loo jeedo addoonku waa qof laga xoog batoo la qabsaday waayadana waxaa laga yaabaa addoomihii ugu badnaayo joogi jiray inay dad cad ahaayeen dad tima ashqara leh ayaa la addoonsan jiro o lasoo qaban jiray idan xataa bulshadii jaahiliga ah marka la eego addoomaha haddii classification loo sameeyo waxaa laga yaabaa inay ka madow ugu sii yasi jireen ama ugu sii hooseeyey waxaa markaa la tilmaamayaa maamulka xataa ka idinku liitaa hadduu hayo waa in laga dambeeya waayo nebigu wuxuu yidhi fainahu man yacish minkum ciddii idinka midee noolaataa waxay arki doontaa khilaaf tiro badan buu nebigu yidhi facalaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiin waxaan idin farayaa buu nebigu leeyahy jidkaygii iyo jidkii khulafaau raashidiinta khulafaau raashidiinku sharci cusub ma wadaan lakiin waxaa la tilmaamayaa waa jidkii siyaasiga ahaa iyo qaabkay ummadda u maamuleen ee u dhaqeen kaasaan idiin dardaarmayaa buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam gowsdambeedka ku xejiya oo waxaan idinka digayaa waxyaabaha bidacee cusube soo kordha waxaasoo dhammi waa baadinimo ah xadiidka kan waxa uu saxaabigii warinayay ku tilmaamay inuu mawcida baliiqa uu nebigu wacdinayay waxaynu u daliishanaynaa inaan waanal marnaba laga maarmin waxa wada maqashaan xadiidkii xandala ibnu rabiic alusaydi ee saxaabigii min kutaabilwaxyiga ka mid ahaa wuxuu yidhi abibakar baa ila kulmay markaasuu yidhi war xandalow bal iska waran waxa uu ugu jawaabay xandale waa munaafiqoobay oo muxuu xandale saa u leeyahy subxaana allahi maa taquul buu abibakar ku yidhi waar ilaahay baa xumo ka ufane maxaad ku hadashay wuxuu yidhi markaanu nebiga la joogno ee janno iyo naarta uu nagu wacdiyo waxaad moodaysaa inaanu arkayna jannada iyo naarta markaanu ka baxnay ee guryaha iyagii meelahan tagnay iyo carruurtii iyo dumarkii iyo xagga kanna waxaad moodaa inaanu ilownay xadiidkani muxuu tilmaamayaa wuxuu tilmaamayaa qofka mu'minkii marka la wacdiyo iyo marka uu suuqa iska joogo inaan isku dareen ahayn saa daraaddeed inaanay qadiyaddu macluumaad ahayn macluumaad baan maskaxda ku haystay ama aqoon baan lahay inaanay ahayn ee adigoo aqoon lebaad u baahantahay in lagu waaniyo beraan riyaadu saalixiinka soo akhristay ama beraan anuguyo waan isku fillay waad lumaysaa haddaad cidlo u baxdo walidaalika qofka muslimkaahay kama maarmo inuu wacdi dhegaysto saa ogeed baa layna yidhi minimum khudbad jimce waa inaad dhegaysataa usbuucii faral laga dhigay waayo qofka bini aadamka kama maarmaya in la wacdiyo abibakar wuxuu yidhi waana nabad dareenkaa waa qabnaayo balina wadi nebigaa loo yimi calayhi salaatu wasalaam waxaa loo sheegay dareenka ay qabaan ee ah in isbeddel uu ku dhaco waxa uu nebigu ugu jawaabay calayhi salaatu wasalaam haddii waladii nafsii biyadii low taduumuuna calaa ma takuunuuna cindii wa fi dikr lasaafaxatkum almalaa'ika calaa furushikum wa fii turuqikum walakin yaa xandala saaca wa saaca 3 maraat buu ku celinayay xadiiska saxiix muslim buu ku yaalay wuxuu nebigu leeyahay sidaa tihiin markaa aniga ila joogtaan haddaa ku waari lahaydeen malaa'igtaaba idinku salaami lahayd buu nebigu leeyahay furshaantiinna korkooda iyo waddooyinka yacni safka malaa'igtaa ku biiri lahaydeen haddaad dareenkaa mar kasta qabaysaan laakiin xandalow saacad iyo saacad buu nebigu yidhi saacad iyo saacad ma saacad suuqa la galay iyo saacad masaajidka la yimaadaaba maya waa saacad wixii mubaaxa iyo xalaasha ku ahaa haweentaadii xalaasha ku ahayd carruurtaada korintoodii xoogsigaagii cunadaadii waxaagii mubaaxaadka aad ka shaqaynaysay diintu ku ogolayd
iyo saacad aad rabbigaa u gaar yeesho oo aad cibaadaysanayso oo aad wacdi dhegaysanayso oo diin kororsanaysid oo u gaara. maalintii 8 saacadood baynu dunida siinaa soo maaha. 8 saacadood baad ama shaqo ku jirtaa ama waxbarasho ku jirtaa ama waxa ku jirtaa. imise saacadood baynu siinaa ta kale? waa wiigii marka la isku dardaro maalintii 5 gooro 5 daqiiqadooda. wiigii oo dhan maxay isku noqonaysaa? 7 times 25. yani wiigii oo dhan waa 100 iyo maxay waxoogaa, waa waxaan 200 gaadhin. 175 daqiiqadood ay wiigii oo dhan noqonaysa. yani waa 3 saacadood wax ka yar. wiigii 40 saacadood baad shaqaysataa, 3 saacadood oo wax dhimanna waa tukataa. qiyaas labadaas may isu dheeli tiran yihiin. waxaynu u baahanay inaynu masaajidda ku xidhanno, waxaynu u baahanay inaynu wacdiga dhegaysanno, waxaynu u baahanay jadwaladeenna iyo timetable-keenna inuu ku darsanto. saacadaad ilaahay u gaar noqoto, wardidid, saacadaad wacdi dhegaysatid, saacadaad diintaada iyo caqiidadaada kororsatid, saacadaad islaamnimadaada baratid. walidaalika buu nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa masaajidku ku wacdiyi jiray, oo suuqu ku wacdiyi jiray, oo xabaalaha dushoodu ku wacdiyi jiray, oo meel kasta wacdigu uu ka socday. suuquu soo maray, xadiiskii saxiixa ku yaalay. dabeetana suuqii wax lagu kala iibsanayay markuu marayay buu arkay orgi yaroo bakhtiyey. intuu nebigu dhegta qabtay, waa orgi yaroo dhukan dhaga yaryar, intuu qabtay buu wuxuu yidhi, kan yaa dirham siistay? waxay idhahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo cidna kan dirham siisan mayso. waryaa dirham siistay buu nebigu ku celinayaa. markii cidi juuqi weyday ayuu wuxuu yidhi, haddaba yaa bilaash ku qaadanaya? yaa kan bilaash ku qaadanaya? waxay ugu jawaabeen, ilaahay rasuulkiisiiyow hadduu noolaan lahaa buu muciib yahay, ayuu mid ceebayay. innahu asak bay idhaahdeen, waa dhukan yay. orgiiba buu marka horeba ahaa xoolaa dhadigaa la jecel yahay, kani waa marka labaade ceeb buu leeyaho xataa orginimo loola hadhaya maaha, oo qiimihii in xoolaa lagu darsado wax ka dhala maaha. saa daraaddeed ba waxay dhahdeen marka horeaba asak iyo haanu qiimo lahayn, ee kii oo bakhtiyey maxaa lagu falayaa? dabeetana nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sheegay, adduunka aa ku mashquulka tihiin oo dhan ilaahay agtiisa kaa waa kaga qiimo liitaa. addunya kullaha, daaraan dhistay iyo xoolaha shaqaystay iyo waxaa wadaan oo dhan haddii la ysku daro, adduunkaynu mashquul ku nahay orgigaa bakhtiyey waa ka liitaa buu nebigu yidhi. yani wuxuu nebigu rabaa inuu dareensiiyo aakhiradooda waxay geystaan inuu yahay waxa muhimka ah. xabaal iyadoo nin saxaabiya la aasayo xabaashii la qoday oo aan weli luxudkii la jeexin buu wuxuu ku yidhi, ul dhulka ku xarariiqay nebigu. xadiidka imaamu axmed baa soo saaraya. dabeetana wuxuu nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam, istaciidu billahi min cadaabi alqabr, istaciidu billahi min cadaabi alqabr, istaciidu billahi min cadaabi alqabr. waar ilaahay ka magan gala cadaabulqabriga buu nebigu yidhi. ilaahay ka magan gala, ilaahay ka magan gala, ilaahay ka magan gala. waxay taasi tilmaamaysaa goob kasta joogoo inaad wacdi u baahantay. xabaalaha in laysku wacdiyo, oo suuqa laysku wacdiyo, shaqada laysku wacdiyo, oo masaajidka laysku wacdiyo. waayo nafta bini aadamkaa tadabdub badan, bini aadamkaa weecweecasho badan, bini aadamkaa qumanidu inuu one line haystaa ku adagtay. one line inuu taagnaadaa bini aadamkay ku adagtay. sidaa awgeed ayuha alaxiba, wacdi kama maaranno. wakhtiga kooban daraaddeed qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa in ayaamaha dadka lagu wacdiyo iyo taariikhda, iyo qur-aanku taariikha aad u ballaadhan buu ka warramaya. walaqad calimtum aladiina اctadaw minkum fi الsabt faqulnaa lahum kunuu qiradatan khaasi'iin fajacalnaaha nakala lima bayna yadayha wama khalfaha wamawcidata lilmuttaqiin baa ilaha yidhi. qisaskii dadkii hore inta rabbi ka warramay, duul la halaagay oo daayiro laga dhigay, ayaa waxaa rabbi leeyahy waxaanu ka yeelay nakaalan lima bayna yadayha wamaa khalfaha, ay cibra, miday kuwaana qaataan baanu ka dhignay baa rabbi leeyahy.
kuwii joogay iyo gadaasheed dambe kuwa yimaadaaba waxay ku cibro qaataan iyo wa mawcidatan lilmuttaqiin waxay ku waantoobaan inta alla ka cabsanaysa. ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyay wakullan naqusu calayka min anbaa'i arusuli maa nuhabitu bihi fu'aadak wajaa'aka fi hadihi alxaq wamawcidatun wadikra lilmu'miniin. ambiyada qisaskeeda iyo rusushaan kaaga warramayaa baa ilaahay leeyahy si qalbigaaga loo dejiyo. diinta tanna qur-aankanna xaq baa lagu soo dejiyey iyo mawcida iyo wadikra wax waane u ah iyo xusid. ilaahay wuxuu qur-aanka ku sifeynaya hada bayaanu linnaasi wahudan wamawcidatun lilmuttaqiin. idan ayuha alaxiba waano kama wada maarano dhammaanteen in layna waaniyaa baynu u baahanay. qur-aanka ilaahay wuxuu inooga warramaya isagoo ambiye waaninaya. qaala yaa nuuxu inahu laysa min ahlik inahu camalu gayru saalix falaa tas'alnii maa laysa laka bihi cilm inii aciduka an takuuna min aljaahiliin baa ilaahay ku yidhi. nebiyullaahi nuux oo nebiya ayaa ilaahay leeyahy inii aciduka an takuuna min aljaahiliin. waxaan kaa waaninayaa wax magaratada inaad ku biirta baa ilaahay ku yidhi. waxaa qur-aanka ilaahay kaga warramaya dadka mu'miniinta ah maray gaf ku dhaceen xadiiثat ilifkiya wixii la mida yacidukum allahu an tacuuduu limilihi baa ilaah yidhi. war ilaahay wuxuu idinka waaninayaa inaad waxaasoo kale dib ugu noqotaan limilihi abadan in kuntum mu'miniin. waxaa qur-aanka ilaahay inooga tilmaamaya kufaarta in la wacdiyo waayo iyagu waa asxaabi alquluub bay yihiin waa bashar. wacdigu dadka barh baa u haysta caamada in la wacdiyo war ama brofessor ha ahaado ama miskiin suuqa jooga ha ahaado waa insaan ma dhaafo. kahrat almacluumaat ma bedesho insaannimada. haqaafo badan inaad xambaarsantay macnaheedu maaha inaad bini aadamnimada ka baxday. waxba ha is afuufin oo ha isbuufin. dadka barh baa u haysta hadduu PhD soo qaato iyo hadduu waxaa soo qaato afuufmo oo mooda inuu bini aadamnimadii isagu dhaafay iyo meelaha laysku wacdiyo waxaas ay la yar tahay. ma aha sax. saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy xataa gaalka qul inamaa acidukum biwaaxida gaalo waxaad ku tidhaahdaa baa ilaahay yidhi hal midaa idinka laydinku waaninaya ila gaal baa haydeene an taquumuu lilahi mathnaa wafuraada uma tatafakkaruu ma bisaaxibikum min jinna in huwa ilaa nadiirun lakum bayna yaday cadaabin shadiid. idinka mid baa laydinku waaninaya. waa maxay gaalka midka lagu waaninaya? mid ama laba isu taaga saa doontaan inaad fakertaan waa ka fakertaan risaalada iyo rususha iyo ambiyadana la soo diray ma bisaaxibikum min jinna. dee nebi iyo nin waalane miyay isu egyihin? nebi iyo nin waalane ninka waalane waa nimaan xikmad ku hadlayn waa nimaan wax saxa sheegayn waa nin arrinkiisu qasan yahay. nebina waa acqalu nnaas. waxay dhahdaan qofka nebinimada sheegtaa laba mid unbuu noqdaa imaa akdabu lkaadibiin inuu yahay iyo inuu yahay asdaqu saadiqiin. hadduu dhab yahay dee waa ku run sheega kii u run sheega badnaa. hadduu been yahayna waa maxay? ku been sheega kii u been badnaa buu noqonaya. labadaa qof adiga miya iskaga kaa qaldamaya? qofka dadka u beenta badan leh iyo qofka dadka u runta badan leh miya iskaga kaa qaldamayaan? hawmani imise miinis ama sababood baa jiro bini aadamka loo taskareeyo inuu run kuu sheegayo iyo inuu been sheegayo. innagu dadka caadigaa baynu kala naqaanaa ninka beenaalaha iyo maxay ninka run sheegaha. markaad muddo la dhaqanto midna baa kaa qarsoomaya. markaa nebi kaama qarsoomayo. ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa gaalkaa u baahan in la waaniyo. ilmaha caruurtaa u baahan baa ilaahay leeyahy. waid qaala luqmaanu libnihi wahuwa yaciduhu ya bunaya laa tushrik billahi ina shirka la dulmun cadiim. ilaahay qur-aanka wuxuu kaga warramayaa nin la ydhaha luqmaan alxakiim oo xikmad rabbi siiyey. xikmaddiisii waxaa laynooga soo naqliyey innagoo laynoo sheegay intanba ka mid a xikmaddiisii. dhaqankii uu kula dhaqmay ilmihiisa ayaa xikmaddii rabbi innaga inoo soo guuriyey. luqmaan oo ilmihiisa waaninaya baa la yidhi oo ku leh wiilyarahaygiiyow yaa bunay waa tasgiir wiilyarow laa tushrik billaah ilaahay ha u shariik yeelin. ilaahay waxa ku lamaanaynin waayo ina shirka la dulmun cadiim. shirkigu waa dulmi weyn.
idan gaal baa la waaniyaa oo carruur baa la waaniyaa oo dumar baa la waaniyaa wallaatii takhaafuuna nushuusahunna faaciduuhunna baa ilaahay yidhi gabadhii ninkeeda ku madax taagtaa war waaniya baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala gaal daaya munaafiq baa la waaniyaa ulaa'ika aladiina yaclamu allahu ma fii quluubihim faacrid canhum wacidhum waqul lahum fii anfusihim qowla baliiqa baa ilaahay yidhi ta munaafiqiin ilaahay ka warramay ayaa rabbi wuxuu yidhi nifaaqoodaa ka jeeso oo waani oo waxaad ku tidhaahdaa war xeel dheer oo lafahooda gaadha mujrimkaa la waaniyaa gaanga iyo mujrimka hays odhanin warkani waa gaange maxaa maray war waa bini aadam mahmaa facal wa facal bini aadamnimada kama bixin insaanna wacdi kama maarmo sida daraaddeed baa ilaahay wuxuu tilmaamayaa waid qaalat ummat minhum lima taciduuna qowman ilaahu muhlikuhum aw mucadibuhum cadaaban shadiida qaluu macdiratan ilaa rabbikum walacallahum yattaquun qola asxaabu sabtigii markay 3 qaybood u qaybsameen qaar dembigay ku dhaceen qaarna way waaninayeen qaarna way iskaga aamuseen kuwii aan waxbana waanin dembigana ku dhicin baa kuwii kale la hadlay waxay dhaheen lima taciduuna qowman ilaahu muhliku waar duul alla halaagaya maxaa ka waaninaysaan dabeetana waxay dhahdeen waxaanu u waaninaynaa 2 sababoodba annagu inaanu badbaadno daraaddeed oo aan aakhira noloo qabsanin dadka wax ma u sheegteen kuwa dhaforada xirta iyo kuwa khamrada cabba iyo kuwa suuqa ku jira xilkayna saaran waa inaynu wax u sheegno isagoo ama ha aqbalo ama ha diida isagay u taallaa laakiin inaga xilkayna saarani waa maxay waa inaynu waanino waanadaynu waaninayno innaguna waa ku badbaadaynaa walacallahum yattaquun iyana la arkee inay alla ka cabsadaan imisaad aragtay culammadan tabliiqa ah oo intay boob galeen dad ka soo kaxeeyey imisaa aragteen mid khamrigiisii wata soo qabtay yani waa basharun mahmaa facal wa facal waa basharna waana kama maarmo ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu warramayaa waanadu inay ka mid tahay asaaliibta diinta loo faafiyo idcuu ilaa sabiili rabbik bilxikma waalmawcidati alxasana wajaadilhum bilatii hiya axsan ina rabbaka huwa aclamu biman dalla can sabiilih wa huwa aclamu bilmuhtadiin dadka ilaahay ugu yeedh baa la yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam mawcida xasanana dadkaad ilaahay ugu yeedhayso xikmad kula hadal waa macquulaad shay caqliga gelaya waxaad kaloo kula hadashaa baa la yidhi waano wanaagsanna u sheeg hadday dood noqotona dood aan xagxagasho lahayn dood fiican kula dood baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala ilaahay baa og baa markaa laynagu yidhi biman dalla can sabiilih wahuwa aclamu biman ihtada dadka inta hanuunaysa iyo inta lumaysa ilaahay baa og adigu shaqo kuma lihid adiga waxa ku saaran baa nebiga laleeyahy calayhi salaatu wasalaam dadka inaad u sheegto qur-aanku wuxuu inoo sheegay qaar ambiya wacdido wacdigii diiday oo leh sawaaءun calayna wacadta am lam takun min alwaacidiin waa iskaga kaaya mid inaadna wacdida iyo inaadna wacdin laakiin innaga waxaa layna yidhi in allaha yaamuru biاlcadli wاlixsaani waitaa'i di lqurba wayanhaa can alfaxshaaءi wاlmunkari wاlbagyi maxaa alle ku gebagabeeyey yacidukum lacallakum tadakaruun ilaahay wuxuu idin farayaa baa la yidhi cadaalad iyo samo iyo qaraabo xidhiidhin iyo xumaho a ka dheeraataan iyo munkarka waxa sharcigu diido o iskaga tagtaan iyo dulmiga oo aad joojisaan war rabbi waa idin waaninayaa baa ilaahay leeyay yacidukum lacallakum tadakaruun waa khudbad jimco kasta inta badan aayadda aynu maqalno ilaahay wuxuu leeyay rab baa idin waaninaya waxaana la idin waaninaya lacallakum tadakaruun ayuha alaxiba warkaygu wuxuu ku kooban yahay cid wal oo dunidan joogtaaba waanay u baahantay waxaad u baahantay inaad yeelato wakhti lagu waaniyo saxaabadii nebiga haweenkii baa nebiga u yimi waxay dhaha ilaahay rasuulkiisiiyow raggii baa nooga kaa xoog batay mar kasta rag baa kula jooga ee waxaad noo yeeshaa bay dhaheen wakhti annagana aadna waaniso dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sameeyey maalin gaaroo iyagana waaniyo maalin gaaruu la kulmay oo iyagana waaniyey waa xadiidkii uu u tilmaamayey tii 3 ilmood ay ka dhintaan
ee sabirtay in aakhiro xijaab naareed alla uga dhigayo qof dumara istaagto waxay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyo tii labana ku dar wathnayni markay ku celcelisay ayuu nebiguna dhowr goor ugu celiyay wathnayni nebiguna yidhi calayhi salaatu wasalaam. sidaa ogeed waana kama maarantid, waana marnaba kama maarantid. haddaad wadaad kitaaba soo akhrisay tahay waxaad u baahantahay waana iyo wacdi inaad dhegaysato. haddaad oday tahay waxaad u baahantahay waana iyo wacdi inaad dhegaysato. dad dhallinyaro tahay waxaad u baahantahay waana iyo wacdi inaad dhegaysato. waayo qofka insaanka la yidhaahdo ayaa qumanida tooska ahi ku dhib tahay oo aan ka maarmin in wax la xasuusiyo. walidaalika waxaynu isugu imanaynaa goobaha kani wuxuu yahay inaynu waana dhegaysano. siiba dhallinyarada waxaan leeyahay waddankanaad timaadeen waa waddanno khatar ah. khatartiisu maaha nabadgelyadu ma xuma, dhaqaaluhu ma xuma, khatartiisu dhankaa maaha. laakiin waxaa jooga khubaro dad ku ah dadka inay lumiyaan, khabiir cid ku ah kharaa'ista sida loo kiciyo qofka bini aadamka khariisaadkiisa sida loo kiciyo cid khabiir ku ah, khabiir cid ku ah shubahaadka, khabiir cid ku ah inay brain wash kugu samayso. waayo dowladahan iyo dadkani dad homogeneous ay u baahan yihin. dadka waa in systemka waxbarashoo dhami asal waxa u ah dadka in la maydho. hadduu kaasi ku qaban waayo systemka iclaamka oo dhami waa in dadka lagugu daro. hadduu kaasina kuu taag waayo qaanuunka iyo booliiskaa kugu daraya. qaanuunka waa inuu ku qabtaa. idan integration baa maqli doontaan. waxbaad la timi ka qaalisan waxay dadkani hayaan oo dhan oo inaad rabbi taqaano iyo sida loo caabudo. wax ka qaalisan baad la timi oo ah waxyigii ugu dambeeye samada ka soo degay inaad garanayso. haddaad wacdiga ka fogaato kaasi wuu kaa lumaya. maalin walba marka wada tegi maysid waa dhab. inta weli caqiidadu kuu nooshay waxay u badan tahay inaad marka wada tegin, laakiin in yar baad u siibanaysaa. in yar maalinba in baad siibanaysaa. 5-6 sane markaad joogtana adiga iyo iswilishkaba in laydinkala garan waayaabaa laga yaabaa. inaad madowday uun midabkunbaa laydinku kala sooci doonaa. kana waa nin madow, kana waa nin cad. laakiin dhaqanka iyo afkaarta iyo aragtida iyo qiimaynta iyo suu wax u arka iyo mustaqbalka iyo siduu u rajaynaya iyo wuxuu raba inuu qabto iyo wuxuuba waa la isku darsami doonaa. haddaba isku darsankaa waxaa idinka ilaalin doona biidni illaahi tacaala waa inaad ku xidhnaato inta wacdi meel kuugu dhow iyo meelaha rabbi la isku xasuusiyo aakhiro. meeshii aakhiro lagugu xasuusinayo ee rabbi lagugu xasuusinayo inaad ku xidhnaato. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.